اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برشاد الصوماليه هذه برنامج كان مع عبد الله كسو دواده ورالكي قالقا ilaahay khayr siiyo iga ogolaaday maanta inaan baraysi maahay wada sheekaysi aan yeelan doono waayaa kale waa walaal qaaliya ku soo dhawow Cabdisamed Nuur Bidaar looyaan horta Cabdisamed intaan ku weydiin badanaa waxay yiraahdaan Cabdisamed Nuur looyaan Cabdisamed Nuur Bidaar horta magacaad noo fasilta looyaan saxda lagu yeelo magacayga saxda oo hooyay aabay igu walqaleen waa Cabdisamed taa ma aanan bedelin waxyaabaha mucjisada ahna waxaa ka mid ah weligii naanays maanan yeelan dadku naanaysay yeeshaan ilmaha ila dhashay ka wuxuu noqdaa Cabdisamed Nuur Bidaar ilaa maalinka aanu yarayn maadaama aabbo xoogaa nin iska caan ahaa waana lagu aabahay Bidaar buu lahaa marka Nuur Bidaar baa la oran jiray laakiin aabbo magaciisa oo saddexaani waa Nuur Xasan Looyaan marka markaanu dhulkaanu nimay looyaan technically last name kayga ma aho Soomaali saddex magac baan isticmaalnaa Cabdisamed Nuur Xasan aabahay baa Allah u naxariistay mar aan wadanka tagay iyo yiri ma looyaan ba last name ka dhigataan tii baanu dhaqan gelinay aniga Cabdisamed aan ugu horeeyay ilmo Nuur mahado haddaan hadda ku iraahdo jiilkii cusbaa wadankan aanu ku dhalnay aniga iyo walaalahay iyo ilma adeeradayba kulli waxaanu magaca dambe uga dhignay looyaan marka caruurii aanu dhalay waa Edman Looyaan iyo Abyan Looyaan iyo Saxarla Looyaan iyo Suuban Looyaan magacyo Soomaalina waan u wada bixinay caruurii Cabdisamed waraysigeeni baan wadaagayaal bilaabanayna waraysigani maaha waraysi waa sheeko wadaag waxaan marar badan daawadaa talasiin dhalinyarada aad xooga saartaa sax waxaad la hadashaa bulshada Cabdisamed iskuulaadkii wadankii iskuul baad ku soo dhigatay waa sax af Soomaaliya wali Soomaaliya sax jiilashii naga dambeeyay isku jiil un baan maadaa isku jiilna waa run maanu aqoon sida mikrofoonka loo qabsado waa sax kinda gaarana ma xanaanada carruurta sax ama asiil oran jiray in yar baan ku soo marnay waa run ma garanaysaa laakiin imika waxaad moodaa markaad bulshada la hadlayso dhalinyaradu ku eegayaan eye contact aragtida indhahooda qofkii eegaysa waa sax xagee baad ka soo baratay ilan jiilkeeni baa nalama barin mise nalama barin xanaanada carruurta waan soo maray xanaanada carruurta laakiin niyood hiba ilaahna waa iska jirtaa I think waxyaabaha kale oo caawiyay macallin baan noqday anigoo nin yara jaamacadda Colorado State University marka macallimaduna waxay ku baraysaa sida dadka wax loogu sheego waxna waa iska dhalasho waa hiba ilaahay gaar ku siiyay waxna waa tababar aad qaadanayso ninaan saaxiib nahay oo magaaladan aad had maaragtay codkar ah ayaa waxaan ku iri markii aad bilaabaysay mikrofoonada codkar maadan ahayn laakiin hadda waxaa tahay codkar laakiin I believe mid baan aaminsanahay mahadow wax kasta waa la baran karaa eeyaha wadankan Soomaaliya sida loo tababaray qaar baa la tababaray halkaas oo dhaafay Soomaa qof bini aadana ilaa maalinkuu godka galayo waa baran karaa hadduu doonayo wax aadan baran karin in yarun baa waxaa la isku dhaamaa heer markii aad joogtaad baxad ogaan kartaa waxa aad ku fiican tahay iyo waxa aadan ku fiicnayn marka focuska waxaad saaraysaa waxa aad ku fiican tahay iskuulaadkan hadda dugsiga dhexe sax macallinku wuxuu arkayaa qofku wuxuu ku fiican yahay sax annaga nalooma sheegi jirin waa sax waxaanu ku fiicannahay ma farsamada iskuulka iskuulaadka waa arkayaa waxa inankan engineering ama dhakhtarka farsamada waxay ku dhacday inaan annagu inkastoon dadaalaynay maaragtay jiilkayagii dad badan oo macallimiin wadan oo dadaalayso af Soomaaliga wata la qoray waa sax laakiin wali waxaad moodaa in dadkii hadda xoogga saarayaan in luqadii af Soomaaliga laga sii guurayo waa sax gaar ahaan wadankii waa sax tusaale ku siinay waxa weeye Saudi Arabia maxadka Saudi Arabia lacag yar bixinaysa sax waxa lagu dhigayaa Hargeysa xamar macad qadar sax dhinac kale Turki sax dhinac kale Kuwaiti sax carruurta sax taariikhiya iyo bulsho ahaan ku reebaysaa wadanimada way ka tirtiraysaa shaki kuma jiro sideedaba marka aad yar tahay waraaq cad aad tahay
warqad cad aad tahay warqad cad aad tahay waxa lagu qoro influence kugu yeelanaysaa in yar baa inuu ilaahay hiba gaara siin doonaa oo dib u fiirin doono oo oran ruuxii lagu aqrin jiray waxba kama jiraan laakiin sideedaba bulsho kasta in yar baa wax bedesha in yar baa yani dadka wacyiga u leexisa boqolkiiba inta badan oo majority-ga ahu waa dad shaqaysta waa dad fiican waa dad laakiin aan saas u sii qoto dheeraan culays bay nagu tahay dhibna way nagu tahay mahadow caruurta iskuullada nin yar waxaan arkay maalin iskuullada xamar baan tegey iskuul baan tegey waxay yaqaanaan taariikhda qatar iyo sacuudiga gobollada sacuudiga yaqaanaan laakiin haddaan weydiiyo buurtee ugu dheer wadankii Soomaaliya suurad ma garanayo lama barin dhib kuma laha dhib abdeeda ma laha wadankii oo dhan baa iska burburay laakiin waxaan rajaynayaa dadka maanta madaxda ka ah inay taa dareemaan bulsho aan taariikhdeeda baranin bulsho aan historygeeda baran waa taariikh ingiriis baan ku eeg bulsho meesha ay ka timid aanan baran meel xun bay ku dambayn doontaa waxaan iraahdaa wixii dhacay waa in wax laga barto haddii Albert Einstein muxuu yidhi haddii wixii lagu celceliyo aadna aad rabto inay natiijo kale aad ka hesho ahdow marka in taas laga shaqeeyo iyo ani adigu horta jiil nasiib badanna waa ahayno jiil waxaanu ahayn isku dhex jira Soomaali meel walba ka yimid nin beledweyne ku dhashay nin bahar dheer ku dhashay yaa isu imaanayay waa wax fiican wadankan Mareykan waxaan aaminsanahay wuxuu ku hormaray because adduunka dhan baa isugu yimid adduunka oo dhan nafaqada wanaagsan ayaa isugu yimid meel hadday diverse tahay diverse dad kala duwan ay joogaan way horumartaa magaalooyinka even Mareykanka ee horumaray magaalooyinku way ka dhaqaale badan yihiin wayna ka horumar badan yihiin gobollada inteeda kale hadda state-kan Minnesota aanu degannahay halkan waxaa la yidhaha Twin Cities waa Minneapolis iyo St. Paul iyo suburbanka ku dhegan state-kan oo dhan waa intan dhul ahaan waa in yar laakiin populationka iyo wax soo saarka iyo horumarkuba waa intan magaalooyinka waaweyn ee California iyo New York dhaqaalaha Mareykanka aad maqlaysana waa iyaga meesha dadka kala duwan isugu yimaadaan mahadow waxaa kaloo kor u kaca waxaan ugu yeero artska waxaan ugu yeero farshaxanka fanka kor buu u kacaa sababtoo ah waxaa isu imanaya laba qof oo kale fikrad duwan oon isku tuulo ku dhalan oo laba khibrad oo kala duwan leh laba aqal oo kala duwan ka soo baxay markay isu yimaadaan ooy gabaygaa tiriyaan ama codkaa muusiga ay saaraan waa ka duwanaanayaa hal meel yar oo baaquli yar ku jiray ma fahmaysaa marka anu waxaan rajaynayaa Soomaali inaan taas ku fakirro aqbalno waxa aanu ku kala duwannahay aysan xumaan noqonin ifaham hadalkayga waa hadal culus aniga adna waa mahad ana waa Cabdisamed mahad baa tahay kuma nici karo ma fahmaysaa waxa aad tahay waa inaan aqbalo adigana waa inaad aqbasho waxaan ahay markaasaanu isku meel isu imaan karnaa oo wax wada meel dhigi karnaa marka ilaahay Soomaali ha isu soo celiyo niyadeena burcad Allah isu mariyo talada aad siinayso bulshada qurbaha ku nool gaar ahaan magaaladan ama gobolkan iyo jana guud ahaan Mareykanka iyo isku xirka dunida oo dhan iyo wadanka inaba tala siin lagu dhihi lahaa talab maanta si haddii la oran lahaa horta caruurta ha lagu dadaalo caruurta waa mustaqbalka waalidiinta halkan joogana inay ogaadaan oo bartaan caruurta halkan ku koraya ma aha caruurtii Soomaaliya lagu korinay caruuraha halkan ayaan tala siiyaa mahdow waxaan ku iraahdaa kuwa high schoolka markay soo gaaraan adiga iyo hooyada adaa Mareykan yaqaana adigii hooyada adaan Mareykan yaqaana aduu labada dhinac yaad isla taqaanaa Maxamedow ama Xabsaay ma fahamtay Xabsaay waxaa lagaa rabaa inaad isku balance garayso Xabsaay waxaa lagaa rabaa inaad hooyada wax badan aysa fahamsanayn adigu fahamsan tahay inaad u dabacsanaato adigaa ka advantage badan
marka cunuga waxaan siiyey awood ah inuu يعني dareemo maamul inuu nin wanaagsan yahay inay mas'uuliyad saaran tahay markii aan ku iraday hooyada adaa Mareykan ka badiya mararka qaarkoodna caruurta uu turjumaysa islaantii markaan ku iraday xafsaay hooyada Faaduma adaa Mareykan ka badiya don't take advantage of it hooyada wax fiican u sheeg hadday kula dirirto hadday ku canaanato ogow sidaasay ku soo kortay xumaan kama ah faham sida adigu wax u akhrisato ma fahamsana sida iskuulka ma fahamsana marka isu dabci ma fahamtay because adaa advantage leh adaa jooga xaggan hooyadaana xaggan ay joogtaa marka loo eego fahamka wadankan niyo arintaas aad bay ugu shaqeysay ilaa hadda ugu dhawaad 12 sano intaasoo caruur ayaan iskuulada iyo talaan siiyaa waalidiinta qaar iyo maada wiilkii baa iga boodbooday ila hadal qaar baan dhageysanaynin waa run ma fahamtay laakiin ma hado caawa mid iga qor inta badan caruur waa wanaagsan inta badan caruur waa wanaagsan waxaan aad maqlayso jeelashiiba caruuraha Soomaalida buuxiyeen waa been inta wanaagsan ma jirto fiiri bulsho kasta in ruuxan baa ku jirta focus kun intaas u qabanaya ma hado focuska waayo waxa lagu raadinayaa runo miidiyahan iyo dadku hadii nin baa wuxuu noo soo bandhigi jiray jeedaha cidda uu jirtay maalin dambe wax xun oo aan fiicnayn ayuu noo soo bandhigay boqolku baa saacad gudaheed daawo haddaan qabiil kala caayo oo wax daawanaya boqolaal baa daawan lahayd laakiin haddaan iraahdo caruurteedu inta badan Minnesota waa fiican yihiin nin saaxiibkay oo u shaqeeya Hennepin County waa meeshan hadda joogno waa countiga ugu weyn state of Minnesota ugu dad badan ayaa wuxuu ii sheegay booliisku la shaqeeyaa wuxuu yiri caruuraha aad maqlayso maalmo sawirradooda jeelka haddaad gasho aad arkayso waa waxa loogu yeero repeat offenders waxa weeye dhowr dambiye galeen marka ciyaalka marka hore ay dambi galaan opportunity baa la siinayaa يعني probation baa la gelinayaa laakiin booliisku mar walba ishu ku haynaya wax cunug aan dambi gelin ama wiilka cad aan dib loo eegin baa asaga loo eegaya marka caruuraha waxaan ku dhahaa aduu wiil cad ma tihiday double is the booliiska hala murmin gaariga marka ay maato shukaanta faraha u saar yes sir dheh ma fahamtay pride kan kugu jira meel yara dhigo wuxuu ugu yiri waa 250 ilaa 300 eeyals waa wali waa tira badan laakiin markaan u eego 30 kun oo degan iyo 10 kun oo ciyaal iskuul nooga dhigta nawaaxigan waxba ma aha waa number yar cadaanka intaas uga jirta iyo madowga waa ka badan yahay waanu muuqanaynaa marka waxa laga yaabaa asagoo 14 jir inuu yara leexday dhibkiina socdo tana aan kugu daro mahadow inta badan waalidiinta talaan siiya waxaan ku iraahdaa inuu gaago haddii uu iskuulka ku fiican yahay salaadiisa tukanayo uu ku aqbalayo wixii saan yar iyo hadday timaha sare guduudsado iyo hadduu sarwaalka ka dhacayo iyo waxaas iyo ku dhibin wuu ka weynaan waa la soo wada maray timahan hadda lagu wada haysto oo saanta la leeyahay dah aniga mid yaroon dhalay ninka igu yar halkaasuu timaha geystay oo dawaagii covid kana lama taabano meel walba tii la xiray maalinkii dambe isagaa iskii u daalay ku weynaaday dakadii wixii baa dhib ku noqday maalin buu yiri aabba igee meeshii hooyadii baa actually kaxaysay waa laga soo jaray waalidka marka waxaan ku iraahdaa ilmahaagu hadday wax fiican samaynayaan oo waxa muhiimka nolosha ay hayaan habadar garayn intan kale waa yariyo uu koraya labii maalinku 20 ku soo gaaro nin wanaagsan weey gabar wanaagsan weey waxaan kaloo kugu darayaa waalidka waxaan iraahdaa ilmaha leexan doona oo jidka yara qaloocan maraya mahadow markuu 10 jir yahay 12 jir waa saansaantaad garanaysaa saansaanta ayaad garanaysaa hadduu inta culayska ugu badan
waa pubertyga waxaan ugu yarna markay soo gaarayaan ay soo gaarayaan 11 12 ilaa 16 ayaa ugu daran. I think markuu sanadka labaad dugsiga sare ilmaha soo gaaro I think cunugaas waa fit wax badanoo dambe loogama baahna intii hore la qabsanaya deganaantii iyo wixii intaas culayska hala saaro. cabsimadoo bulshadu waa hooyo iyo ab waa sax nin iyo dumar ma garanaysaa labadaba waa loo baahan yahay waa sax caruurtanna ilaahay ka sokow mas-uuliyadda labadoodaba way haysataa xamba ha igu ahaatee sida la sheegayo bulshada Soomaaliyeed dee wax qalada kama hadlin laakiin markuu aabbahu iyo hooyadu kala tagaan kala taguna diinta banaysay dhaqanka wax walba badanaa nimanku qaar baa sida la sheegayo waxay ku tuuraan maca caruurtina way furaan xaggaaba ka hadlayna negatifka فالمها ودجوجا أبوها يهويدو عروت الفائدة أولى ذاكو إيوه أبوه حدي كرتجان أو يقول يهويدو يعروت الجوجان إنه أبوه كور حيو وضع أما 50 كونتن بقول كيبا تضبط سكولات كوكحي وإنه ابنه عروتك بدي عيارتها نوع كستا midba waqooyi tagaya sax midna koonfurta la geenaya waa sax hooyadaas ina kana markaan kugu daro ilaa 13 12 way hayn kartaa waa sax wixii ka weyn wuxuu u baahan yahay father figures waxa markay raganimadu soo gasho aad iyo aad qof ku daydo inuu helo adeer haduu adeer joog guriga yimaado abtiyo oo nin ku daydo bal labada talo waalidka caruurta markaad eegto in labada waalid faa'iido u leedahay hadii la kala tago inuu aabuhu ka tagin mooyaane oo caruurtan involve la yiraahdo koritaanka maadaama macallin abdo sax soo hay garaadka ilmuhu ma ku koraan sidee bay noqdaan waa su'aal aad u fiican waana topic aad muhiim ah oo in laga hadla daraasaad kasta oo la sameeyo waxayna tusaysaa oo noo sheegaysaa caruuraha ka yimaada guriga labada waalid leh inay ka fiican yihiin oo nolosha ay ka hormaraan kuwa kaligood ka yimaada macnaheedu ma aha ilma ka yimid guri ama hooyo korisi ama aba kaliya koriyay inaysan waxba noqonayn ma aha su'aasheedu jawaabtu boqolkii ilmood ee ka yimaada laba waalid gurigoodu waxaa laga yaabaa 80 inay successful noqoto whereas kuwan only 20 ama 50 ay noqoto marka isla joogitaanka waalidku horta waa muhiim wadankan daraasado badan oo la sameeyo waxa kamid ah misalan dadka African American afar lixdankii markii la pass gareeyay waxa la yiraahdo civil rights law oo dawladuna ay welfare badan ay soo dejisay numberka hadda ma garanayo caruuraha ku dhasha waxa loogu yeero out of wedlock yani laba qof aan isqabin aad buu u yaraa walaa cadaanka walaa madow hadda waa opposite waxa laga yaabaa 8 ilmood oo u dhasha family madow inay laga yaabaa dawladdu inay guursatay hooyadii markaa dhibaatay keentay shaki yar kuma jiro politically xoogaa waa very marka waxaan ku sheegayaa waa muhiim haddii dhibaato qoyskaas ka dhaco mahadow qurbaad ku korisay caruur aan ku soo koriyay mana qariyo aniga wiil waxaan lahaa aan leeyahay oo hadda 22 jir austistiga haddii aanu ahaan lahayn team aniga muna aanu ka wada shaqayn lahayn dib xoog leh ahaan lahayn shaki kuma jiro markii ayadu focus ka saarto cunuga aanu labada kala saaray treatment baan halkaas ka bax midkan maaragtay concert gee gabadha soccer gee waa shaqo culus weyn gabar wali shaqo laga rabo laga doonayo inay waxaas wada samayso way ku adag tahay marka haddii xataa ay u suura geli weydo oo familigaas oo ay reerkaas kala tago aabaha wali xaq baa saaran caruurtiisa inuu ka warqabo ilmihiisa faa'iidada ay ku qabaan aabanimada ay gabadhaada iyo wiilkaagu ay saa ku eegayaan ay ku oranayaan aabahay nolosheeda qayb buu ka yahay wax weyn ay taraysaa waalidka waxaa laga yaabaa
waxaa laga rabaa inuu ilmahaas uu noloshiisa ka qayb qaato gabadha dumarkan ay la fahamto caruurtan aabaheed waa u baahan yahay wayna isu baahan yihiin ayagoon isqabin waayo abshir araggaagu wadaagayaal waa cabdisamed cid kale aan ku masaalo garan maayo ilaahay ha barakeeyo saaxiib walaal waa maxay quruxi waa ixtiraam dulqaad wanaag bulshaawiya intaaba anigoon hadda baayis noqonay intaaba waa tahay waana ku faraxsanahay macaawo inaan Minneapolis gobolka Minnesota wada joogno igu soo dhaweysay adiga Muuna iyo bulshada weynba inshallah mana noqon doonto maalintii ugu dambeysay la isku wareysan asxaab badan baa ku joogto taaha iyo dadkii waa lagu sugayaa aad iyo aad yaa guul baan adiga Zamzam idin rajeynaya Oregon waa isku arki doonaa insha Allah wayno sidaa wixii socon doontaa barnaamijkana khayr baan sugnaa walaalkii Mahad Cabdi sababtoo dhinacayga fadhiya maalintaadu habeenkaadu ayuu wacnaadaan